kula wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad nagala socotaan waa 24 news haddii aad ku cusub tihiin janaalkan fadlan subscribe-ka noo saara like-ta iyo share-kana waa noo dhiirigelin magacaygu waa Ismaaciil Turki qodobada aad daawan doontaan 15 daqiiqo ee soo aadan oo faahfaahsan waxa qayb ka noqonaya wasiirka amniga oo dareemay tuhun ku aadan muddo kordhin haddaba qorshahaas yaa wada waad maqli doontaan qodobada sidoo kale aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya garoonka Dobley waxa ku dhacday diyaarad siday sahay ciidan waxay u waday ciidanka Kenya ee ku sugan Jubbooyinka maxaa keenay inay soo dhacdo diyaaradaasi faahfaahin ayaan idinkaga hayaa qodobada sidoo kale aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xabsiyada Sacuudiga xaalad aad u adag ayaa laga soo sheegayaa maxaabiista xabsiyadaasi ku xiran waxa ay shaaciyeen in ay suuliga biyaha ka cabaan haddaba waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay iyo dhibaatooyinkaasi laga soo sheegay xabsiyada ku yaala wadanka Sacuudiga qodobada sidoo kale aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Mahdi Maxamed Guleed Qadar si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha maanta waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlay xaalado ay ka mid yihiin fatahaadaha cudurka COVID-19 iyo anyaxa oo farabaan ku haya xilligan beeraleyda Soomaaliyeed qodobadaas ayaa daawad nootaan 15 daqiiqo ee soo aadan taariikhdu maanta waxa ay ku beegan tahay 4 bisha 8 Agoosto sanadkuna waa 2020 mar kale waxaan idin leenahay isku soo noqod wanaagsan garoonka diyaaradaha magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in ay ku dhacday diyaarad nooca militariga ah oo ay leedahay dawladda Kenya sahay ayay u waday ciidamada Kenya ee ku jira howlgalka midowga Afrika AMISOM ee ku sugan deegaanada hoostaga degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose diyaaradda ayaa la sheegay markii ay damacday in ay soo caga dhigato garoonka ay halkaasi shil ku gashay inkastoo aan si rasmi ah ilaa iyo haatan loo shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dhicitaanka diyaaradda iyo in ay tahay cilad dhanka duuliyaha ama sidoo kale garoonka ka soo wajahday hal qof ayaa ku dhintay shilkaasi halka saddex kale ay ku dhaawacmeen dhammaantood dadkaasi waa howlwadeennada diyaaradda la socday waxaana la damiyay dab qabsaday diyaaradda sida ay markaasi 24 news u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka xilliga uu shilka dhacay waxa ay ahayd habeen waxaana gabi ahaan baxirnaa dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale qasaaraha waxa yareeyay in ay koobnaayeen dadkii la socday diyaaradda dad ku sugan degmada ayaa sidoo kale waxa ay 24 u sheegeen in had iyo jeer diyaaradan ay sahay u keeni jirtay ciidamada difaaca Kenya ee xiran koofida cagaaran ee nabad ilaalinta midowga Afrika dawladda Kenya kama hadlin ilaa iyo haatan diyaaradan ku soo dhacday Dobley wasiirka amniga xukuumadda kalsoonida lagala laabtay Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay inuu socdo abaabul la doonayo in dawladda federaalka Soomaaliya waqti loogu daro qorshahaasi ayaa wasiirka waxa uu tilmaamay inay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo habeen ka hor ku shiray Muqdisho Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay dawladda in ay ka sugayaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo xildhibaanadana ay ka waantoobaan wax walba oo dalka dib u dhac u keeni kara wasiir Ducaale hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli habeen ka hor Muqdisho ay ku shireen qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo sheegay inay u taagan yihiin badbaadinta baarlamaanka iyo sidoo kale in dalka aan loo horseedin qalalaaso si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa maanta shir gudoomiyay kulan si gaar ah looga hadlay wax ka qabashada fatahaadaha cudurka COVID-19 iyo anyaxa oo ka mid ah xaaladaha ugu daran ee xilligan dhibaatada ku haya dalka kulanka ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay wasiirada si hayaasha ah waxaana aad looga hadlay xaaladahaasi iyo habka ugu sahlan ee looga hortagi karo kulanka ayaa inta uu socday dhinacyada waxay isku afgarteen in la sameeyo guddi ka soo baaraandega dhibaatooyinkan xalka u baahan ee wadanka ka jira markana haddii aan eegno xaaladda xabsiyada ku yaala wadanka Sacuudiga waa mid adag nolosha xabsiyada Sacuudiga oo ay ku xiran yihiin dad laga soo qabtay goobo kala duwan dhammaan waxa ay sugayaan dib ugu celinta dalkooda balse waa ay kala nasiib badan yihiin marka laga hadlayo sii joogitaanka xabsiga jariiradda The Guardian ayaa gunta hoose u gashay xogta nolosha dadka ajaanibta ah ee ku xiran xabsiyada ku yaala wadanka Sacuudiga saameynta COVID-19
noloshooda cusub iyo habdhaqanka nololeed ee halkaasi ka jira. waxa aan ka shaqayn jiray dukaan weyn oo ku yaala magaalada Jiddah. waxa ay qabtay ciidanka ammaanka wadanka Sacuudiga ka hor inta aan gacanta la igu dhigin. waxaan ku noolaa nolol dhuumaaleysi ah maadaama aan lahayn sharci dalkaasi ah. sidaas waxa yiri nin magaciisa ku soo koobay Ibrahim oo ka sheekeynay nolosha Sacuudiga lana hadlay jariiradaasi. Ibrahim waa Soomaali, da'diisuna waa 40 sano jir. waxa uu biyaha ka cabaa suuliga. nolol aad u xun ayuu sheegay in markaasi ay ku haysato wadanka Sacuudiga, gaar ahaan xabsiyada ku yaala wadankaasi. وهاجاك داوديال warkii aad kala socoteen 24 news xilligan waa naga intaa. waad ku maasantihiin daawashadiina iyo sida markaasi aad dareenkiina noo amaahaysan.